gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee gobolka Togdheer Farxaan Cilmi Cali ayaa bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay inay qaataan kaararka codbixinta ee doorashada 2017 lagu gali doono taasoo dhawaan la filayo in laga bilaabo guud ahaanba gobolka Togdheer kaasi oo noqonayo gobolkii ugu horeeyay ee Soomaaliland laga bilaabo qaadashada kaararka Soomaaliland ee la filayo in doorashadaasi lagu codeeyo fariin ah inay dhamaantood ay qaataan kaararka codbixiyaha diiwaangelinta khaas ahaan waxaan halkan ayagana fariin uga dirayaa dhammaan bulshooyinka ku nool gobolka Togdheer inay qaataan kaarka codbixiyaha doorashada oo bilaabmi doona maalmahan fowda nagu soo xaya waxaan kaloo doonayaa halkan inaan uga faa'iideysto in aan u sheego bulshada Togdheer inay yihiin gobolka ugu horeeya kaararka diiwaangelinta codbixiyaha gobolka ugu horeeya talabaad sida halkan ba hore aanu ugu tijaabinay ama aynu hore testiga ugu sameynay waxaan uga digayaa in qofku uu isku dayo inuu kaar labaad inuu qaato isku dayo si aanu codkiisa u waayin xarigna u muutaysan waxaan halkan fariin ugu dirayaa inuu qof waliba kaarka uu muwaad xaq u leeyahay inuu qaato waxaan kaloo halkan ayadana doonaya aan bulshada reer Togdheer aan uga diro in 2017 ka bisha saddexaad qofka hadda aan qaan gaadhin laakiin maalinta qaan gaadhaya uu xaq u leeyahay inuu iminka qaato kaarkaas oo taasna ay bulshada ku baraarugto ay tahay hawl qaran oo qof kasta oo muwaadina ama ahsaab xisbi ha ahaado ama ha ahaado qofka shacaba in gacmaha la iswada qabsado oo maanta diiwaangelinta siday tahay looga wada shaqeeyo waxaan kaloo